saddex ka taga roobku rays buu ka tagaa ragguna ray bay ka tagaan raaliyaha weena raas bay ka tagtaa waa qayb kamid ah barnaamijyada aan mararka qaarkood idin soo tabin jiray ee aan uga hadli jiray murtida afka Soomaaliga caawana dhowr kooban ayaan ka oran doonaa qayb kamid ah murtida afka Soomaaliga ee saddexleyda marka la yiraahdo lama soo wada koobi karo laakiin qayba barnaamij baan ku soo qaadan doonaa aad baad u mahadsantahay sidoo kale hoos nagula wadaag murtida afka Soomaaliga haddii ay tahay iyo taariikhaha aad u baahan tahay in aynu ka hadalno ama aan soo tabiyo dadku waa saddex qof wax istara dadkana wax tara iyo qof wax istara dadkana aan wax tarin iyo qof dadka aan wax tarin naftiisana aan waxba u tarin saddex lagagama tago tolka diiday lagagama tago geelna didis lagagama tago dumarna dudmo lagagama tago waxaa jira 5 shir dumar dhaxalkiisu waa xan iyo xasarad shir ciyaal dhaxalkiisu waa dakhar iyo dayac shir culimo dhaxalkiisu waa sharci iyo shareeco shir gumeed dhaxalkiisu waa golo buuq iyo afbuur shir gobeed dhaxalkiisu waa go'aan iyo guddoon waagaag aan ka dhaxgalo aan ku xasuusiyo haddii aad ku cusub tahay channelka Daymacad Media ku soo biir subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid saddex raggu waa ka siman yihiin waa magta muuqa iyo magaca saddex baa ragga ugu liita nin maqan oo aan la tabin nin tagaya oo aan la celin nin jooga oo aan la tirin saddex faa'iido lagama gaaro cilmi doqon galay aqli dumar galay cadaalad cangashay saddex lama saaxiibo rabbi ma yaqaan rag ma yaqaan iyo run ma yaqaan saddex bay ka tagtaa roobku rays buu ka tagaa raggu ray buu ka tagaa raaliyo haweenna raas bay ka tagtaa saddex waa lagu tarmaa duco waalid deeq badan durbaan aroos saddex naagtaada ayaa kugu nacda hambo la'aan hamo la'aan iyo hami la'aan saddex ma daayaan dumar sheeko ma daayaan ragna guura ma daayaan libaaxna booda ma daayaan aad baad mahadsantahay la soco qaybaha xiga ee murtida afka Soomaaliga iyo hadday tahay taxanaha joogtada ee taariikhda muhiimka ee qarnigii 16aad ee buugga Futuuxul Alxabasha ee mahadhareebka sooyaalka taariikheed ee qarnigii 16aad ee Geeska Afrika qarnigii Imaam Axmed Gurey